arrinta kale ee aan doonayay inaan maanta dhalinyarada ku baraarujiyo waxa weeye noloshan in wax laga bedelo maal iyo muruq iyo maskax waa inaynu isu geysana maal muruq waan haysanaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin aqoonina inagama maqnaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin tamaqani waxa weeye waa maalkii wax lagu qaban lahaa wuxuu yidhi marka aanad hamoon noloshu waa mooyi dabadeed waxa lagu soo celcelinaya dhalinyartu waa 7% bulshada deegaanka taa aad tirahdeen baan idin la qaatay 10 milyan haddaynu nahay dadka deegaanka ku nool maanta 10 milyan haddaynu nahay 7 milyan waa dhalinyaro soo ma 6 milyan intayna diidan ka soo qaad ma la heli karaa 1 milyan oo da'diisu intay doontaba ha ahaatee mustaqbalka dhalinyarada iyo dhalinyarta iyo jiilka yar ee deegaanka Soomaalida mustaqbalkooda danaynaya ma hayna 1 milyan oo qof oo toddobaadkii bixiya 10 riyaal 1 milyan oo qof boo bixiso toddobaadkii waxaynu isu keeni karnaa ma taqaana 10 milyan baynu isu keeni karnaa toddobaadkii bishii waa 4 toddobaad imisaynu isu keeni karnaa 40 milyan baynu isu keeni karnaa bishii 40 milyan haddaynu isu keeno 12 bilood imisaynu isu keeni karnaa 480 milyan oo bir baynu isu keeni karnaa ilaahay mooyee cidna uma baahnayn